mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo kulan Muqdisho ku yeeshay ayaa soo dhaweeyay hadalkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku aadanaa matalaada gobolka Banaadir. Cabdirashiid Sandheere ayaa soo jeedinaya warka. Kulan weynahan ay isugu yimaadeen beesha Baadacade oo ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan ayaa waxa ay kaga hadleen arinta ku aadan maqaamka Muqdisho iyo matalaad inay hesho gobolka Banaadir. Arintan ayaa kolkii hore waxaa hore ugu dhawaajiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna sheegay in maqaamka Muqdisho ama gobolka Banaadir ay hesho matalaad. beelweynta Baadacade ayaa waxa ay ayideen ama ay soo dhaweeyeen hadalkaas madaxweynaha waxaana kulanka maanta goobjoog ahaa nabadoono waxgarad dhaqan siyaasiyiin haween iyo dad kale oo u dhaqaaqa bulshada rayidka. ugu horeen waxaa goobta ka hadlay Maxamed Nuur Waliyo iyo Naciime Cali Geesay oo labada ka mid ah dhalinyarada beesha Baadacade waxayna cod dheer ay ku taageereen arinta maqaamka gobolka Banaadir ayaa waxa ay soo dhaweeyeen in ay hesho matalaad gobolka Banaadir. waxaan rabaa anigoo ku hadlaayo afka aqoonyahanka iyo dhalinyarada beesha Baadacade waxaan rabaa inaan taageero marka hore hadalkii madaxweynaha Jamhuuriyadda oo ahayd in gobolka Banaadir oo yeesho matalaad. waxaan rabaa marka inaan yiraahdo matalaada gobolka Banaadir iyo maqaamka magaalada Muqdisho waa muqadas waana qodob dastuuri ah sida ku cad dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaan rabaa marka halkaan inaan codsi ugu diro mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo maanta aan rajaynayo inay u codeyn doonaan in gobolka Banaadir uu matalaad yeesho. waxaan rabaa mudanayaal codkii shacabka aad meesha ku fadhisaan codkanadii aad meesha ku joogtaan magaalada Muqdisho oo ah caasimadda ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad door muhiim ah ka ciyaartaan sidii magaalada Muqdisho ay ku yeelan lahayd maqaam gooni ah. waana qodob dastuuri ah waxaan hadda aan dhahay ma jiro waa qodob dastuuri ah in magaaladan ay yeeshato maqaam iyadoo gaar ah maadaama 3 milyan in ka badan ay ku nool yihiin. anoo ku hadlayo marka dhalinyarada aqoonyahanka afkooda waxaan codsanayaa labada aqal ee aqalka sare iyo golaha shacabka in gobolka Banaadir ay maanta u codeeyaan inuu yeesho 20 sanatar aqalka sare inay ku yeeshaan sababtoo ah 4 milyan dad ka badan meeshaan u degan si gaar ah anaga marka ka beesha Baadacade ahaan si gaar ah inuu dhibaysa gobolka Banaadir inuu matalaad la'aan ahaado. waxaan codsanayaa baarlamaanka maanta inay go'aan ka gaaraan aysan u kala kicin maadaama maanta ay ka hadlayaan gobolka Banaadirna ay waajib noqoto in matalaad uu ku yeesho xubnaha aqalka sare maadaama dawlad goboleedyada kale ay leeyihiin matalaad. waxaan rabaa marka inaan fariin halkaan ugu diro waxaan maqlaayay siyaasiyiin qaar oo ka ololeynaysa in gobolka Banaadir uu matalaad yeesho. walaalayaal naga raali ahaada annagayna dhibaysaa in gobolkan uu ahaado matalaad la'aan. gobolka waa la wada degan yahay waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed laakiin haddana waxa war uu ka taagnin in gobolkan haddana loo kala badan yahay si gaar ah annaga waxaa moodaa in cashuurta dawladda ay ku socotaba dadku ugu horeeyo oo haddana ka weyn laba aan ka nahay cashuurta dawladda ay ku socotaba laga qaada ganacsatadana si gaar ah inuu dhibaysaa gobolkan inuu matalaad la'aan ahaado. waa ku soo celcelinayaa waana u taagnaa doonaa gobolkan maanta waa inuu yeeshaa matalaad baarlamaankane ay noqotaa maanta maalin taariikhi ah oo ay u codeeyaan in gobolka Banaadir uu yeesho 20 sanatar. waxaan kaloo rabaa marka ragga ku howlan oo sida wararka ay nagu soo gaarayaan diidan in gobolka matalaad uu yeesho waxaa leeyahay ilma adeerayaal naga raali ahaada sarafaad leedihiin rag siyaasiyiin oo dalka magac ku lahaa tihiin wararka marka suuqa la isla dhaxmaraayo oo la dhahayo rag baa ka codeynaya in gobolkan uu yeesho matalaad la'aan annaga si gaar ah inoo dhibaysaa waxaan idin leeyahay naga raali ahaada walaalayaal. ugu dambeyn marka waxaan warkayga soo koobaya dawladda federaalka Soomaaliyeed oo hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre waxaan ku bogaadinayaa maaratay go'aankii ahaa in gobolka Banaadir uu yeesho matalaad. waa ku mahadsantihiin waan idinka mahadcelinaynaa inta ay in ka badan maaratay
go'aanka ku gaarteen maadaama rag idinka horeeyay ay garan waayeen in maanta madalaad ma aragta gobolka banaadir oo yeesho waa ku mahadsantihiin waana soo dhaweynaynaa waxaana codsanaa mar koowaad iyo mar labaad baarlamaanka arrinta iyada maanta inaysan u kala kicin oo gobolkan banaadir ay ma aragtay arrintiisa ay meel u bixiyaan waa mahadsantihiin anigoo ku hadlayo codka arrimaha bulshada waxaan soo dhaweynayaa hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu yeesho maqaam gobolka banaadir waa arrin lagu farxo anagoo ah maxay aheeday dadka dega gobolka banaadir mana nihin dadka 991 imaaday waxaan nahay 60meeyadii 50meeyadii dadkii joogay ilaa waagaas markuu ahaa suuqa ceelgaab ama Siinaay dadkii dukaamada ku lahaa bacadlaha weyn xamar weyne ilaa hadda lambaradooda iyo ay noo leeyihiin dadkii intaas canshuurta laga qaadayay ee wax ku baranayay dadkii xilligaas ku dhashtay ilmo ku dhalay ilmahoodii ilmo kale ku sii dhalay waxaan ka mid nahay saraha xamar weyne ku yaala ee caanaha geela lagu dhisay dadka leh aan ka mid nahay 60meeyadii ama 50meeyadii degmada Boondheer oo hadda aniga aan ku noolahay waxa gudoomiye ka ahayd gabar beesha baadacada oo la ogyahay taariikhda way qoran tahay lama iloobaan waay dad baa ku doodaayo anoo 7 sano jira la keenay anigoo maxayda dhowr 10 jir ahan meeshan wax barasho maada ilmaha ku dhalay dadkii ku dhashay ilmo ku dhalay ilmoodii ilmo ku sii dhalay joogo ilaa waqtigaasna canshuur laga qaaday dawladda dadka ay ku tiirsan tahay ee 99% canshuurta laga qaadan ka midnahay waxaan nahay beel nabdood aan hadlin afgaaban beelaha Soomaaliya dadka aan dhibaatooyin aan u geysan wadanka Soomaaliya aan dambi ka galinaanahay hore Soomaali waxay u tiri ninaan hadlin hooyadiis wax ma siiso markaan aragnay Soomaalida siday u hadlayso iyo siday wax u kala boobayso iyo dadka xaq ku leh ee wadanka ilaaliyay ee shuruucda ilaaliyay ee dirisnimada ilaaliyay ee aamusay in aan bal la fiirinaynin waxaan go'aansanay annagana inaan afka furanoon hadalno marka waxaan leenahay maanta waxaan baaq u dirayaa xildhibaanada sharafta leh ee nagu matala kuraasta ee Soomaaliyeed inaad maanta u kala kicin aad ansixisaan in uu yeesho maqaam gobolka banaadir loo dhan yahay qof walba iska dhax arki karo annagana waxaan rabnaa labada beelood ee mar walba lagu soo celceliyo beelaha banaadiriga iyo mudulood qofka saddexaadana qabiilada saddexaadana nahay canshuurta laga qaado hantida noo dhax taalo suuqa weyn ee lambar 1 ka ah Muqdisho Bakaaro haddaan been iska ilaaliyo lambar 1 ka nahay waxaan nahay dad ganacsade oo caan ah oo la yaqaano maraakiib noo soo degto doomana noo soo dego dhalinyaro fara badan oo wax baratay wadankan joogto guriyaan ku leenoo canshuur laga qaadaa marka anaga waxaan leenahay in xuquuqdeeni la duufinin in markay ugu yar tahay in 17 15 oo yeesha gobolka banaadir mudan yaali marweyn waa idin salaamaya mar labaad iyo mar saddexaad aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa in codsigeena aan ku biirino qabaa'iladii hadlay ee u hadlay maxay ahayd gobolka banaadir in uu maqaam yeesho inuu u hadlay ayaan daba soconnaa annaga dib kala ma wadano iyo hadalkii madaxweynaha inaan soo dhaweeyno waxaan leenahay Soomaaliya guuleysato meel walba ay joogto maqaam inay yeelato magaalada Muqdisho waan ku faraxsanahay gobolka banaadir inuu yeesho waan ku faraxsanahay waayo dibka ugu weyn ayagoo haysta jidadkii ka xiran canshuura laga qaadaa wadooyinka uma dhisno shacabka iskuma socon karo inuu maqaam lagu la xisaabtamo oo canshuurta soo xarooto waxa laga yaabaa inaysan gobolka xitaa ku xaroonin ciidan kula xisaabtana u baahanahay cid kuraastas nagu matashaan u baahanahay aad u mahadsantiin ugu dambeyn kulanka ayaa waxaa soo xiray Islow Cali Islow Maxamed Islow Cumar oo kamid ah nabadoonnada Soomaaliyeed wuxuuna dhankiisa cod dheer ku taageeray arinta ku aadan in gobolka banaadir ay hesho matalaad dhab ah maanta halkan waxaan u taaganahay inaan taageerno maqaamka gobolka banaadir banaadir waa lama taabtaan waa hooyadii Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa madaxweynaha uu hambalyeynaa Ra'iisul Wasaarihiisa Xasan Cali Khayre in ay garteen in maqaam loo sameeyo gobolka banaadir ha loo sameeyo maxaa loo sameynaa waa naguma filna tirada ay sheegeen waxaan ugu filan tiro ka badan 20 in laga yareeyo ma aha xildhibaanada maanta u fadhiyo inay ansixiyaan gobolka banaadir in maqaam loo sameeyo beesha baadacada xaquuq ay ku leedahay gobolka banaadir
xaquuqdeeda waa inay heshaa wax walba oo ka maqan waa inay heshaa beesha baadacadde qarni in ka badan ay degan tahay gobolkan banaadir beesha baadacadde waa inay heshaa xaquuqda ka maqan kor iyo hoos beesha baadacadde waa dowlad ku nool waxayna taageersan tahay dowlad ayay taageersan tahay waa dowlad ku nool dowlad ma diidana aniga waana taageersanahay dowladda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahana waa ku mahadsan yihiin waxa garadka ay garteen in maqaam loo sameeyo gobolka banaadir gabagabadii ayaa waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan baadacadda ayaa waxa ay kulankooda maanta ay ka soo saareen warmurtiyeed ku aadan waxyaabaha ay isla meel dhigeen waxaana warbaahinta u akhriyay cabdiraxmaan cali maquul oo ka mid ah dhalinyarada beesha beesha baadacadde waxa ay soo dhaweynaysaa hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku aadanaa gobolka banaadir inuu helo maqaamkiisa labo beesha baadacadde oo ka mid ah beelaha degan inta badan degmooyinka gobolka banaadir waxa ay soo dhaweynaysaa in shacabka gobolka banaadir matalaad ka helo aqalka sare beeshu waxa ay bogaadinaysaa dadaalada ay wadaan siyaasiyiinta xildhibaanada baarlamaanka ee ku howlan xaqiijinta maqaamka Muqdisho iyo matalaadda gobolka banaadir afar maadaama beesha baadacadde ay ka mid tahay beelaha ugu badan ee canshuur bixiyaasha ah waxaa laga maarmaan ah inay hesho xuquuqdeeda ku aadan matalaadda xubnaha aqalka sare ee gobolka banaadir beesha waxa ay soo jeedinaysaa inay matalaadda ay xaq u leeyihiin shacabka gobolka banaadir tirada aqalka sarena in laga siiyo xubnahooda maadaama shacabka gobolka banaadir ka tiro badan yahay bulshada kale ee ku nool maamul goboleedyada dalka ugu dambeyn beesha baadacadde waxa ay ku baaqaysaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay kaalin mug leh ka qaataan xaqiijinta iyo hubinta maqaamka Muqdisho iyo matalaadda gobolka shacabka banaadir matalaadda shacabka gobolka banaadir ee aqalka sare waa maasantiin cabdirashiid sandheere telefishinka caalamiga ee Kalson TV magaalada Muqdisho